ahay ninkii xafladda meherka ku soo casuumayey labada beelood inta kala guursanayay xalayto kaarkii baan kala qaadanay dee nabadgelyaan ku kala seexannay waxay ahayd in saaka meherku 10 ka dhaco 9kii baa nalagu wargeliyo la yidhi war gabadhiiba waa meydoo waxay taallaa dhakhtar halka kana mucjisada markaa dhacday dee waxaanu leenahay ilaa ilaa waa inay raajicuun inanta waxaanu leenahay ilaahay jannada firdawsa ha geeyo ilaahay ehelkii ka tagtay ehelka khayr badan ha u geeyo ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo inanka waan adeer ahay oo ay ahayd inaanu de saaka u gudoono aqalka ka taagnaa baanu saaka la gudooman lahayre inankana waxaanu leenahay ilaahay jannada isagana sabir iimaan la siiyo ilaahay sabir iimaan ha siiyo ilaahay sabir dhamaanteen ilaahay sabir iimaan ilaahay inaga siiyo sidii aqalku sheegayay waa ibra qaadasho waxba dadka lagu tusaya warba ilaahay laga cabsado wada aragtaa naftu intay jirto inta saaka la guursan lahay caaw aqal adduunyo gel lahayd aqal aakhirey ku jirtaa الله لك عبصده إلهي وحن قبرنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة